salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. soo dhawaada saaxiibayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan iyo xilli kastoo ay kuu tahayba. haddii aad muuqaalkan daawanaysid dabcan waxaad usoo gudubtay qaybtii labaad ee muuqaaladeena taxanaha ah ee aan doonaya in adiga kugu fahamsiiyo sidaad uga shaqaysan lahayd qaybna uga noqon lahayd suuqa sarifka lacagaha qalaad ee magaciisa loo yaqaano forex trading. dabcan muuqaalkan koowaad ee ciwaankiisu yahay Scalp Strategy waxaan ku sharaxi doonaa mid ka mid ah saddexda istiraatiijiyadood ama saddexda hab ee aynu suuqan inagu uga shaqaysano haddii aynu nahay Hayaan Academy. hase ahaatee maxay kaga duwan tahay qaybtan labaad qaybtii ka horeysay ee taxanaha ahayd. muuqaaladii ka horeeyay waxaan kugu fahamsiinayay xirfadda sida u baran lahayd. taas micnaheedu ma aha muuqaaladii soo daawatay inay ka dhigan tahay inaad forex dhamaysay hore suuqa ka gelisid. waxaan kuu sheegay wixii la samayn lahaa balse maxaa laga baahan yahay saacado badan inaad samaysid wixii aan kuu soo sharaxay oo ku celcelisid. intaad hal mar daawatid inaad computer kala timaadid kadibna aad malaayiin dollar ku sameynaysid ma waa in gacantaadu ay la qabsato xirfadii aan ku soo baray. wixii aad samayn lahayd waa taqaanaa ina imin ku celcelisid ay ka rabtaa qaybtii koowaad aynu kasoo gudubnay. qaybta labaad waxaan ugu bixinay qorshe ganacsi way ka ballaaran tahay farsamo kaliya in lagu barayo. qaybtan waxa weeye farsamadii aan kugu soo baray qaybta koowaad sida la iskugu dardaro kadibna lacag loogu sameeyo ama ganacsi loogu sameeyo aan ku fahamsiinaya. waxaan ku fahamsiin doonaa saddexda istiraatiijiyad ee anigu aan suuqa kaga tareergarayo ardaydeeda iyo macallimiinteeda oo dhanna ay kaga tareergarayaan ama macallimiinta kale oo ila shaqaysto aan wax barayba. saddexda markaan ku baro istiraatiijiyada waxaan ku tusi doonaa haddana xaqiijimo guud wax loo yaqaano ama confirmation checklist guud oo u qaybsami doona laba qaybood oo kala ah inaan ku baro wax loo yaqaano price actionka ama waxaan af Soomaali ahaan u naqaano naqshadaha uu suuqu samaysto iyo sidoo kale candlestick patterns wax loo yaqaano ama naqshadaha ay samaystaan shumacyada kala duwan. goortaynu ka gudubno istiraatiijiyadaha iyo xaqiijimahooda waxaan kaloo ku bari doonaa sida telefoonka loogu tareergareeyo ama MetaTrader 4 marka la soo dego sida demo account-na loo furto real account-na loo furto ama real account-kaagii loo gashto wax la yiraahdo MetaTrader 4. MetaTrader 4 kadib waxaan ku fahamsiin doonaa waxa ay kala yihiin pending order iyo market execution order oo ah labada qaybood oo kala duwan ee trade-ka loo galo. intaa kadib waxaan ku sii fahamsiin doonaa haddana qaybtan labaad ee qorshaha ganacsiga aad ku baran doontaa sida khasaaraha la iskaga ilaaliyo ama waxa loo yaqaano risk management. waxaad kaloo baran doontaa sida akoonkaaga loo koriyo ama waxa loo yaqaano compound effect. intaasoo dhan kadib waxaan ku khatimi doonaa qaybteenan inaan ku fahamsiiyo maxaa kala duway dadka forex intay soo galeen ku guuleystay malaayiinta dollar ka sameynaya iyo dadka intay forex soo galeen 3 bilood ama 4 bilood kadib ku dhahaya bari dhexdaas forex wax la yiraahdo bilaabayo iminka waa iska daayay ama waa wax khiyaaliya. sirta waxay noqon doontaa qaybta ugu dambaysa ee muuqaaladan. marka haddii aad soo daawatay qaybtii koowaad ee muuqaaladeena taxanaha ahaa qaybtan labaad isku day inaad daawatid muuqaal walba inaad 3 jeer ku ceshitid waxa muuqaalka ku jirana kaliya waxay kuu shaqayn doonaan markaad adigu samaysid. hal mar maaha 2 mar maaha 100 jeer iyo ka badan markaad ku celcelisid ayay kuu shaqayn doonaan. haddaba istiraatiijiyadana koowaad si aan u guda galno waxa laga marmaan ah inaad fahamtid istiraatiijiyadan inay tahay midda ugu fudud ugu horeysa ugu dhaqsiyaha badan lacagta ugu badan aan ka sameeyay. sideedaba waxaa jirta oraah caan ah oo marka la joogo forex ay dadka traderska isticmaalaan oo macnaheedu yahay waxa la yiraahdo less is more waxa laga wadaa wixii yar baa badan. waxaad arkaysaa anoo hal indicator kaliya isticmaalaya. haddii indicator badan wax lagu helayo ana indicator badan isticmaalaa balse indicator uu ka yar yahay ayuu ka fiican yahay. waxaad arkaysaa shaashadeedu inay nadiif tahay oo sida u qurux badan tahay oo 150 waxyaalood ay igu sawirneen sababtoo ah wixii yar ayaa fiican. haddaba istiraatiijiyadan way kooban tahay waxaanu ka tareergareynaa waxa weeye suuqa candleskiisaas ayaa waxaynu sugaynaa inaynu calaamadsano laba xariijimood oo ah meeshii ugu sareysay ee uu suuq shalay gaaray iyo meeshii ugu hooseysay ee uu suuq gaaray waxa la yiraahdo shalay kadibna aynu sugno suuqu labadan midkood inuu dhaafo ama tan inuu hoos u dhaafo kadibna uu ina siiyo isku laab kadibna uu hoos aado ama inuu sidaas sameyn ee tan intuu hoostan tago la soo celiyo uu tan kala dhaafo kadibna isku laabna siiyo kadibna aynu kor u raacno. simple waa intaas. sidee marka ku ogaan ka dhaa meeshii ugu sareysay ee suuq shalay gaaray iyo meeshii ugu hoosay ee suuq gaaray. sidaan kugu soo baray videoga aan kaga hadlayay sagxadda iyo saqafka waxaan ku iraahdaa waxaynu tagnaa settingkeena kadibna waxaynu la soo baxaynaa session breakgeena. session break-gaaga marka ku soo dirstid automatically waxaad haysataa maalin walba oo kamid ah maalimihii la soo dhaafay meeshii ugu sareysay ee uu suuq gaaray. okay maxaad haysataa
maalin walba oo kamid ah maalimihii la soo dhaafay meesha uu suuq gaaray iminka markaan videogan duubay waxa la joogaa September 2 midii ka horeysay maxay ahayd 30 August marka 30 August meesha ugu sarreysay suuq gaaray waatana meesha ugu hooseysay suuq gaarayna waatana si aad marka suuqan uga trade gareysid candle-kan hadda uu marayo suuqan fiirin maysid si suuqan aad fursad ganacsi uga raadisid waa inaad maxay fiirisid baan ku yiraahday konton jeer wax ka badan baan ku soo celceliyay dhinaca bidix ee suuqa waa inaad eegtid okay waa inaad dhinaca bidix ee suuqa waa inaad eegtid haddaba waxaad fiirinaysaa marka maalintan la joogo hadda ee labadan candle kaliya ay joogaan xilli waxaan duubayaa videoga ay hadda maalinta kala wareegtay yaadana inuu computerka iyo shaashadiisu khaldan tahay waxaad aragtaa in hadda maalin dhamaatay sax oo candle-kan wuxuu sameysmay 6 saac ayuu sameysmay candle-kii ku xigayna waa kana actually UTC bay joogtaa marka waxaan ka dhiganayaa meesha aan joogo ayaan ka dhiganayaa oo ah UTC +1 UTC +1 baan ka dhiganayaa barlinay meeshaan uu joogo okay waxaad aragtaa kan inuu ahaa 3:20 kana 6 saac uu ahaa oo markii saacad dhamaataba in uu bilowdo maalin cusub hadaba markaan rabo inaan maalintan ka tareer gareeyo waa inaan fiirsado labadii maalintii ka horeysay maalintan meeshii ugu sareysay suuq gaaray waa tana meeshii ugu hooseysay suuq gaarana meeday iyadana waa tana kadib maxaan sugayaa marka si aan fursad uga raadsado suuqan waxaan sugayaa hadda meel dhexe ayuu joogaa inuu hoostan u soo jabsado kadibna uu bullback siiyo kadibna uu hoos taraaraxo simple waxa dhan ee lagu sheegayo oo istaraatiijiyada iskulaabku horta waa intaas hasaatee kan maadaama hadda cusub tahay maalintan si aan trade-kan u galno trade-kan hadda dhaqaaqay ee intaan oo biib laga qabtay 80 biib laga qabtay si aan trade-kan u qabsano waxay ahayd inaan maalintan ka fikirno Soomaa maalintan inaan ka fikirnay ay ahayd si aan trade-kan uga faa'iideysano tusaalahaas ayaan ku tusiyaa sida ay ku timi marka saadna backtest u sameeysid backtest waxa la dhahaa inaad tijaabisid wixii lagu baray maalintii ka horeysay ayaan tagaynaa halkii ugu sareysay maalintan saan trade uga galno maalintan halkii ugu sareysay waatana halkii ugu hooseysay oo suuqeedu gaarana meeday iyaduna waatana kadib maxaynu sugnay marka waxaynu sugnay in uu suuq u kor iyo hoos u jabsado 6 saac weyn malkaan ahayd koodii waatana labadii waatana saddexdii aroornimo soo jabiyay afartii halkaan ayuu soo jabiyay shantii subaxnimo muxuu ina siiyay isku laab ayuu ina siiyay dhammaystiran ama maxaa oran kartaa isku laabkan caadiga ah weyn baa qaadan kartaa the moment marka uu suuqeena intuu soo jabiyo uu noogu laabto trade-kaas waa active has aate hubantiyo kale iyo waxyaalo kale oo ku hubinaysid ayaa jira balse si aan fursadan aniga u galay iminka oo trade-kan aan u qaato waxaan ku tusiyaa sidii u fududahay forecast-ku dadka qaybtooda ay rabaan inay kugu adkeeyaan trade-kan dhan ee waxa la yiraahdo gaaraya 85 biib 86 biib 86 biib waa badan tahay maxaa iga badnaa 50 biib baa iga badnaa 50 kan biib si aan u qabsado nidaamka dhan ee aan suuqa kaga trade garanay waxa weeye sagxadii iyo saqafkii aan ku soo baray videoyadii taxanii hore aan kaaga soo sheekeeyay ayaan isticmaalayaa maxaan ilaashanayaa marka waxaan ilaashanayaa suuqu 6 saac habeenimo wixii ka dambeeya xariijintan ayaa ku soo darsamaysa okay xariijimaan cadcad oo dhaadheer ayaa mar kasta oo ay 12 habeenimo gaarto ruqooyo 12 bay dhahaan reer koonfurkuna waxay dhahaan 6 saac habeenimo so 6 saac habeenimo marka la gaaro ama 12 habeenimo marka la gaaro ama saqbarka marka la gaaro labadan xariijimood ee aan binkiga kugu calaamadeeyay oo kala ayaa sameysmaya markay labadan sameysmaan ayaad waxaad raadinaysaa meeshii ugu sareysay ee maalinta suuq gaaray meeday waa tana meeshii ugu hooseysay oo maalinta suuq gaarana meeday iyaduna waa tana maxaan ku iri marka isma waalayo suuq waxaan sugayaa labadan midkood inuu jabsado maalintii way dhamaatay kor ayuu u kacay ugu dambeyn muxuu sameeyay hoos ayuu soo jabsaday haddaba sidee ku aamini karaa soo jabsigaagu inuu dhamaaday waa inaad heshid 2 ama 3 kandal wax ka badan oo ku xirmay diirinta hoosteeda meeshaas si fiican u fiirso okay sometimes waxaan sameynaa sidaan oo kale markii isku gudhow yihiin wiiga afkiisa oo kale ayaa dhigan kartaa wiigan labaad soo muujido ugu hooseeya afkiisa ayaa dhigan kartaa ama waxaad sameyn kartaa intii aad sidaan u durkisid ayaad diirin kale ku qaban kartaa kadibna maxaa sawiran kartaa kadibna zoonkii aan kuu soo sharaxay sida loo sawirto ayaad sawiran kartaa oo maxaad leedahay sheekadu line way ka balaaran tahay meeshaan zone iga dhig haddii aad isku laab strategy toos u timi oo aadan soo daawan sagxadii saqaf markaan ka sheekeynaya zone-kan iyo sida loo sawiro way kugu adkaan doontaa haddaba maxaan ku iri marka zone-ku waa kana halkan muxuu ka ahaa halkan sagxad buu ka ahaa oo waa laga celinaya suuqa kandalkan markuu sameysmayo sidoo u sameysmo waa ka soo sheekeynay hoostaas ayuu tagay waa la soo celiyay xagee buu ku xirmay boodiga kandalku meesha uu ku xirmay ayaa la rabaa sagxadda korkeeda ayuu ku xirmay waa la ixtiraamay
ixtiraam ayuu ku socday okay waa la celiyay markii dambe uu soo noqday suuq waa kana kii koowaad waa la celiyay rejection baa la sameeyay kii labaad baa jabsaday xageeba ku xirmay candle-kii labaad wuxuu ku xirmay diilinta hoosteeda kii saddexaad xageeba ku xirmay diilinta hoosteeda haddaa heshid laba candle oo ku xirma diilintaada hoosteeda waxay ka dhigan tahay suuq inuu hoos cusub oo hoostii hore ka hooseysa samaystay hoostaada hore meeday waa tana it means haddii laba candle iyo ka badan ay ku xirmaan suuqu muxuu samaystay hoos cusub ayuu samaystay hoos iyo kor waxay tahay waan kasoo sheekeynay iminka maxaynu sugaynaa marka iminka waxaynu sugaynaa inuu suuqeenu soo laabto deetana uu ixtiraamo xariijintii inoo ahayd sagxadda inay saqaf noqoto mar allaale iyo marka candleka cagaarka oo halkan ku xirmo traderkaasi active buu ku yahay calaamadda waxaa soo qabsanaysaa short positionka kadibna halkan ayaad dhiganaysaa ma dhigatay waxaad leedahay ilaahu aadan beerka waayine waxaad leedahay stop losskaaga waxaad ka fikiraysaa structureka kugu soo sokeeya structureka aniga igu soo sokeeya ee suuqiga laga celin karo haddii lacala uu igu soo laabto sababta ogow waxaa dhici karta suuqu intuu 20 bib oo minus intuu ku geliyo inuu 80 plus ku siiyo ayaa dhici karta maxaa laga rabaa marka dhinacaagan bidix fiiri dhinacaagan bidix structurekan soo iguma soo dhawaa kan soo ma jeed structurekan ama meeshaan suuqa u ahaan lahayd waxa la yiraahdo sagxadda stop losskayga meel ka sareysa ayaan dhiganayaa so kiiskan oo kale maxaan ka dhiganayaa 30 bib ayaan ka dhiganayaa why because waxaan ogahay suuqan haddii hadda la soo celiyo marka aan gala kadib haddii la soo celiyo meelahan inuusan dhaafin hadduu meeshaan dhaafo meelahan inuusan dhaafin hadduu meeshaan soo dhaafo waxay ka dhigan tahay traderka waa ku khaldanaa stop loss buu kaaga dhacay kadibna iskaga baxaysa waxaan kaa rabaa inaad aqbashid inuu traderka stop loss ku dhici karo waana sababta loogu soo diray stop loss marka hore maxaa lagu siin lahaa take profit qallalan baa lagu soo siin lahaa traderka kuu saxan analysiska kuu saxan strategiga kuu saxan wax walba kuu saxan iyo stop loss kaaga dhici karaa marka waxaa laga rabaa inaadan madax adayg samayn oo stop losska intaadan ka saarin aad oran traderku soo noqon doonaa ee aad aqbashid inaad traderkan ku khasaartay madaxa dejisid 2 trade 3 trade oo kala raadisid okay haddaba stop losskeena maxaan ku saleynaynaa baan ku yiri structurekan meesha ka sareysa 30 bib soo ma take profit kaaga always waxa la ekeystaa stop losskaaga oo anagu waxaan isticmaalnaa 1-to-1 ratio sababtuna waxay tahay laba jeer ayaan halkii trade bagalnaa traderkaas aan waxa qiibsanay laba jeer ayaan galayaa stop losskayga maxaan ka dhiganayaa 1.108 baan ka dhiganayaa take profit maxaan ka dhiganayaa 1.01 baan ka dhiganayaa isku laabka lagu sheegayo nidaam noocaas ayuu u sameysmaa aan dib u baxna bal isagoo buy ahaa inaan helno isagoo fursad buy ahaaya inaan helno saa u fahamtid isku laab strategy haddii aad dib u raacday suuqa ilaa 2001 u noqotid kadibna qiime maalin walba maalintii ka horeysa ku qiime kadibna waxaa ka sugtaa fursad inuu halkaa kaa siiyo suuq ka sug okay hada kan oo kale fiiri maalintan meeshii ugu hooseysay oo kale waatana okay dhinacaagan bidix markaas u fiirisid mid buy ah baan raadinayaa si aad u fahamtid strategiga buy iyo sell gaba sanaan oo kale markaan oo kale scalp strategy fursad buy ayayna siisay waxayna ku fiican tahay scalp strategy marka uu suuqu uu jiha leeyahay tusaale ahaan maalintan baan doonaynaa inaan trade gareyno maalintan aan ku highlight gareeyo suuqan dheer oo quruxda badan oo jihaysnaa ayaan waxaan doonay inaan trade gareeyo si aan maalintan u trade gareeyo marka maalintii ka horreysay meeday waa tana labadan diilimood inta u dhaxaysa ayuu suuqu maalintan lahaa meeshii ugu sareysay uu gaaray ayaad xariijin dhiganaysa soo ma jeedin meeshii ugu hooseysay uu gaarayna iyadana xariijin ayaa dhiganaysa waxaan ku yiri xariijinta waa lagu calaamadsadaa balse aaga oo dhan ayaa muhiim ah si aan marka aaga oo dhan u xisaabtid maxaa sameyn kartaa inaad weegana ku dhajisid boodhigana aad mid kale saa u dul saartid kadibna aad dhexdooda ku sawiratid maxay kadibna aad dhexdooda ku sawiratid rectangle-kan oo kale rectangle-ka waa kasoo sheekeynay habka loo isticmaalo muuqaalkii koowaad ee muuqaaladii hore ee taxanihii kale ayaan kaga soo sheekeynay soo ma jeedid maxaad sugaysaa marka waxaad sugaysaa inuu suuqayno waa kana maalintii labaad meesha ka bilaabatay ama inuu hoosta aado oo bullbagina siiyo ama in sida aan dhacday uu korkaan aado candle-kii koowaad xagee ku xirmay diilinta korkeeda candle-kii labaad xagee ku xirmay diilinta korkeeda haddaadan kan xataa xisaabtan fiiri 3 candle kadib maxaa dhacay toos ayuu wuxuu ku siiyay bullbag maxaa marka isku laab ereyga isku laab xagee ka keenay suuq waa inuu diilintaada jabsado oo isku laab ka siiyo isku laab markaa siiyay maxaad sameynaysaa waxaad soo qabsanaysaa simply suuqa marka bayda lagu galayo calaamadda bayda ee long positionka ayaa soo qabsanaysaa bartan ayaa entry ka dhiganaysaa dadna maxaad leedahay stop losska ayaa xukuma take profitka structureka igu soo dhow suuqan laga celin karo waa kan weeye soo ma jeedid
kan meel ka hooseysa ayaan dhiganayaa marka 30 bib badanaa 30 bib 25 bib waa ka helaysaa degdeg ah. That's why ay noogu fududahay anaga hayaan academy channelkeena signalska in intaan trade soo jirno iyadoon duhurka la gaarin 4 trade iyo ka badan ay take profit noogu dhacaan. Okay, kadib maxaa leedahay fiiri simple laba trade baa galaysaa marka hore kan koowaad maxaa ka dhiganaysaa 30 baa ka dhiganaysaa soo ma jeedin kan koowaad maxaa ka dhiganaysaa 30 ayaad ka dhiganaysaa take profit kaagi degdeg ayuu kugu dhacayaa. Actually saddex candle kadib take profit buu kugu dhacayaa which means 3 saacadood gudahood ayaa take profit ka qaban lahayd. haddaba Schoolab strategy nuxurkeedu waa intaan waxa ay ku salaysan tahay ee ugu muhiimsan waxa weeye in aad iska hubisid high of the day iyo low of the day ama meeshii ugu sareysay suuqa iyo meeshii ugu hooseysay suuqa kadib suuqa markuu jabsadana waa inaad raacdid. haddaba 4 shay oo muhiim ah ayaa jira oo la iska ilaaliyo Schoolab marka la joogo. mid kood waxay tahay suuq aan ogahay sidaan oo kale inuu ku socdo waxa la yiraahdo uptrend sidaan oo kale ayuu uptrend ku socdaa waa u jeedaan uptrend ku socdo iska ilaali suuqaan oo kale Schoolab hoose ka raadisid oo mar walba inta aad Schoolabkaaga xisaabsan maxaa fiirinaysaa wareeda dhinacayaan bidix xaalad nooceeya ka jirta suuqu ma geeskaan u socdaa mise geeskaan ka imaanaya fahamsa. dhinaca kale waxa muhiim inaad baratid in qaybta saddexaad marka saddexda istiraatiijiyad dhameeyo waxaan ku xijin doonaa inaan ku baro naqshadaha uu suuqu samaysto. marka waxaa jira naqshado badan oo suuqa soo gadoomiya oo ay kamid yihiin head and shoulder oo kale hadduu suuqu u socday buy u socday head and shoulder-ku wuxuu u kaxeeyaa sell buu u kaxeeyaa ama inverse head and shoulder-ka oo kale oo hadduu suuqu u socday waxa la yiraahdo buy sell u kaxeeya. qaybta dambe ee lagu sameeyo waxa la yiraahdo lagu sameeyo in confirmation checklist-gaan ku sameyn doono ayaan kugu tusayaa. waxa kale oo muhiim ah ayadana marka Schoolabkaaga aad fiirsanaysid suuqa waxa laga eegtaa baan ku yiraahdaa suuq markuu dhaqaaqayo wuxuu sameeyaa wax loo yaqaan acceleration iyo deceleration. acceleration waxa laga wadaa suuq in Schoolabka ixtiraami doono waxa lagu gartaa habka uu u soo laabto. hadda kan oo kale fiiri qof baa wuxuu yiri meeshaana waxa ii noqonaysaa bi yiraahdaa acceleration waxa laga wadaa suuqu habka uu qaraar qaato deceleration waxa laga wadaa habka uu qaboobo. qof baa waxaan dhahnaa halkan inay u ahayd Schoolab u ahayd in dhahno okay halkan ay Schoolab u ahayd tusaale ahaan baa ka wadaa meesha Schoolab sax ma aha laakiin acceleration iyo deceleration kana fahamtid baan rabaa. kadib kandhaladaan hadda sidee ku socdaan xawli bay ku socdaan soo ma xogaa wal dibcina celiyo laakiin ma aysan noqon xawli waaliye ku socdeen sax which means inuu acceleration waalan suuq ku socday balse kan markaa fiirisid arag tan ayada ka horeysay oo kale markaa fiirisid arag maxay ku soo socdeen tartiib ayay ku soo socdeen kan dhalinyaro red ah laba kala yar yar saddex acceleration nooca deceleration noocaas oo kale caataa suuqa markuu ku soo socdo waxay u badan tahay in rejection laga sameyn doono meesha Schoolab ku ah sida hadda kan dhacday oo kale fiiri maxaad arkaysaa waxa arkaysaa 1 hour candle hore in la reject gareeyay tartiib inay candlelada u soo yaraadeen oo uusan suuqu sal yeelan karin ee ay tahay inuu buy aadiyo. sometimes marka hadda aragtay in candle weyn oo buuran uu ku sameeyo Schoolabka soo laabadka ah ha ku degdegina ka joog ilaa inay candleladu tartiib u tagaan xariijinta mooye. mid labaad waxa weeye saacadu ilaa ay dhamaato trade-kan ha isku gelin saacadu ilaa ay dhamaato ha isku gelin sababtoo ah marka saacad iyo kala baranda trade-ka qaatid candle-kaas waxa laga yaabaa inuu ka kharibo ama uu kaaga dhigo wax loo yaqaan fake pullback. fake pullback maxaa laga wadaa tusaale ahaan hadda trade-kan buy buu ahaa soo ma trade qurux badan buu ahaa xariijinta inoo xaqiijisay trade-ka meeday candle-ka inoo xaqiijiyay waa candle-kan haddii uu soo jabsan lahaa ka hor mid shaqayn lahaa markaa trade-kan waa maya waxay ka dhigan tahay in suuqa uu isbedelay jihadiisa. marka fake pullback-gan kaliya iska ilaali rejection-ka sug dhinacaaga bidix fiiri eeg suuqa in jihadiisu ay tahay suuq inay jihadiisu ay ahayd wax loo yaqaano sell opportunity. tusaale ahaan oo kale midkaan oo kale fiiri hadda maalintaan oo kale aan ka trade garaynayna let's see madaxaan oo kale waa la iska ilaaliyaa marar badan baa ardayda u sharaxaya balse isagu halkan ayuu ka saxaya kan oo kale perfect soo ma jeedid kan oo kale fiiri maalintii isaga ka horeysay meede trade-kan aan ka hadlaynaa waxaan rabaa inaan kuu sheego waxyaalaha trade-kaaga kaa khalkhalin kara si aad uga taxadirtid. kan oo kale hadda fiiri maalintaan aan rabin inaan ka trade garayno hase ahaatee trade-kan oo kale waa fake Schoolab strategy buu ku siiyay ama fake pullback buu ku siiyay. maalintaan waa inaan cabirto saan maalintaan uga trade garayo meeshii ugu sareysay meede waa tana okay sidoo kale meeshii ugu hooseysay meede meeshii ugu hooseysana waa tana marmar bisa u kala dheeraan karaan ma ogtay. haddaba
waxaan aniga ma ogiya dhinacaan dhan ma ogi aan kasoo qaado waxaan dhan inay waxa la yiraahdo ay suuq halkan ixtiraami waayay in kale ma ogi maxaan sugayay markaa anigu waxaan sugayay baan ku yiraahday inuu suuqaygu intuu sidaan oo kale u jabsado hadda uu jabsaday haleejintii sare kadibna uu bulbaa ku siiyey bulbaagan marka madax yar oo sidaan kaligiis meel cilaa yaala dhinacaan bidix oo dhanna aysan waxba kale ka xigin ama structure kale ka xigin haddaa aragtid ha ku degdegin waxay u badan tahay suuqu inuu gaaray meeshii ugu sarreysay uu gaari karay sida dhacdana maxaa aragtaa inuu fake bulbaag inoo sameeyey kadibna isku laabadina siiyey kadibna uu daatay halkaasna maxaa ka bilowday halkaasna saylad ayaa ka bilowday sayladdu waxay tahay in suuqu uu helay aag adag oo laga iibinayo oo uu ka daadanayo madaxa yarkaa calaamadso haddaa aragtid madax keligiis la jari karo oo suuqa intiisa kale laga jari karo fiiri suuqa intiisa kale meede hoos buu kaa jiraa madax keligiis meeye korka ayuu kaa jiraa haddaa aragtid madax sidaasoo kale loo jari karo waxay ka dhigan tahay in trade-kaasi uu fake bulbaa ku siin karo lagaana doonayo inaad ka taxadartid mar labaad waa kanaa fiiriday mar labaad waa kanaaday maalintan arag muxuu sameeyey kor buu noo jabiyey haddana muxuu ku siiyey bulbaag dhinacaaga bidix markaa fiirisid structure makaaxiga saan suuqu u soconayo day saan oo kale makaaxiga trade ma ka samaysan kartaa waa maya soo ma waa meel cilaayo qalalan buu yaalaa ka carar trade-kan oo kale because wuxuu suuqu joogaa meeshii ugu sarreysay uu gaari karay haddii aad dhinacyadaada fiirisidna waxaa laga yaabaa inay meeshan ka dhowdahay mid ka mid ah shaxanada suuqa aan gadaal kaa tusi doono haddaba all in all markaa soo gaabiyay isku laab strategy marka laga yimaado dhowrka qodob aad iska ilaalinaysa waxa weeye inaad cabiratid maalin walba meeshii uu suuqu joogay okay sanadka trade cusub baan ku raadinaynaa wuxuu rabaa iska ahaado mid iska soo qabo IUDJB waagaas kale iska soo qabo okay waana mid kamid ah waxyaalaha ugu horeeya ee la doonayo inaad baratid markaad forex ku cusub tahay because waa mid kamid ah trade-yada ugu fudud uguna degdega badan ee faa'iido la taaban kara aad ka sameynaysid iminka trade-kan saan u samaysto scalab strategy u cabirto waxaan ka fikirayaa meesha uu hadda suuq marayo saa meesha hadda suuq marayo ka fikiro waxaan fiirinayaa shalay meesha ugu hoosay suuq gaaray meeday waa tana sameed jidid meesha ugu hoosay suuq gaaray because candle-ka casaanka xariijinta cadaanka buu xisaabsan yahay dhinaceedan meesha ugu sareysay oo kale u gaarana meeday iyaduna waa tana sidaan oo kale marka waa inaad zone ka sawirataa zone-ku maxaan kugu soo sheegay videogan kii hore ayaan kugu soo sheegay intaan oo dhan zone ku cabiro soo ma jeed saan oo kale okay kan laftirkiisa isagana meesha ugu dhow oo aad la dhigi kartid baa la fiiriyaa tana u baahana laakiin meesha ugu dhow la dhigi karo meeday waa tana kadibna asagana structure-ka ku sawiro perfect fiidiyoyadan qaybtii hore waxaan isticmaali jiray trading view-ga free-ga ah balse trading view-ga lacagta laga bixiyo balse hadda waxaan u isticmaalayaa trading view-ga free-ga ah waxaan rabaa inaan ku tuso inaadan waxba uga baahan doonin midka lacagta ah maxaan marka ku idhi sidaan Soomaali calaamadsan ha iswaalin ha khasbin suuqa ha ceyrsan sug inta uu suuqu ku imaanayo hadda halkii ayuu suuq marayaa halkan ayuu suuq marayaa maxaa sugaysaa haddii suuqan asal u gelisid inuu kan soo jabsado bulbaag loo jeedo uu ku siiyo bulbaagtina saxanta maxaa ku garan kadhaa waxaa ku garan kadhaa hoostii hore hoos ka hooseysa waa inay soo baxday waa in la helo 2 ilaa 3 kandhal oo diilinta meel ka hooseysa ku furmay kuna xirmay kadibna bulbaagtu waa inaysan jabsan oo saa usoo dhaafin ee waa inay sidaa u ixtiraamto rejection ku siiso kadibna hoos aad u raacdid dhinaca kale daayis maxaa sugaysaa inuu soo dhaafo korka ay kugu sareemay waa kana kor ka sareeyo waa inuu soo baxo bulbaag waa inuu ku siiyo waa inaysan soo dhex jeexin ay ixtiraamto kadibna aad ku raacdid isku laab strategy nuxurkeedu waa intaas haddaba haddii uu suuqu ixtiraami waayo maxaan samaynayaa su-aasha muhiimka tan weeye sida hadda halkan ka dhacday oo kale suuqan uu soo jabsaday halkaanoo bahasha iga siiyey wuu ka dhex bixi waaye sidaanoo kale uga dhex bixi waaye wuu ku wareeray soo maha haddii uu sidaanoo kale uga dhex bixi waayo maxaad samaynaysaa waxaa jirta istaraatiijiyad kale oo tan bedelkeeda ah oo markuu suuqu saanoo kale ku ixtiraami waayo iyada la isticmaalo magaceeduna waxaa loo yaqaanaa saylada suuqa ama istaraatiijiyadda saylada suuqa in isticmaalno muuqaalkan mid ku xigana iyada ayaan ku sharxi doonaa insha allah haddaba waxaa inoo balana muuqaalkan mid ku xiga insha allah